السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايدين سلامة ميل والبوات شوكتان عبد محمود قلع يا برنامج كيدين كي مانشري معهد كنبض يبلشدا ولا ليال سيدات كور هيسان سياد بري wuxuu ahaa hogaamiyihii runtii ugu waxqabadka badnaa ee Soomaaliya soo mara wuxuu uu qabtay ilaa maanta laga sheekeeyaa waxaas ayaan daraa in hadda wixii ka horeeyay iyadoo la og yahay runta la og yahay in la isku dayay in la qariyo laakiin runta maanta dad badan oo qarin jiray ayaa ka hadlaya waana fiicantaa sababtoo waxa weeye waa taariikh Soomaaliyeed waa wax ummadda Soomaaliyeed qabsatay weeye taasna waxa inoogu wacan baan u malaynayaa inaynu waayo aragnimo helay iyo bini aadamku ma og tahay xaq mar walba kama fogaan karo kama carari karo inaynu waniyahu maxaa aniga aan man sheego wixii Ilaahay ugu og yahay iyo dad badan oo gaboobaya oo yiri beenti badnayd oo aan sheegay malaha xaq ma haynin aan sheego Ilaahay caafi waxyaabo badan baa isbiirsaday sababta aan u soo qaadanaya arrinta waxa weeye si aad u fahamtaan bal marka hore waxaan idin tusayaa fiidiyogan laakiin waxaan idin ka codsanaynaa barnaamijka inaad taageertaan oo like iyo subscription ku samaysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wuxuu bakar askariga yiraahda axabadu waxaan baa xaaskiiba u bolaya caawa haraa ku qabari waardiyaha orad iska tag ba ilaa buuji bakar dhawday madaxweynaha waxaan leedahay war hebel badlool yahay bada caruur ba ka tagay ha ila buu ka tagay xagee ka shaqeeya boostada iyagu yeera buu yiri ila bada uu xigeenada ah ee reerahooda aan aqoonin oo ragga abaalka ay galay buu yiri Abdirahmaan Jacbaraha waa taxjeer buu yiri ana koriyay waxa wuxuu aabihiiba abaal gulahaa buu Jacbare ixtaar fabriga abaalka qofka u galay uu qoraraya wuxuu aabahay 100 halaad buu looga dhintay buu badii baan ahaa buu keligay isha gabdhood geelayaga qala jira buu sagal jir baan ahaa beel adig kala buu difaaci karo aroodhe ana ko dhibaataysan Jacbar loo yeeray uu dhakaxay xirsi barro jooga xudur abulqbaashka ciidanka Talyaaniga uu loo geeyay wudi xisa guru loo kariyay markaas adres yeelan oo malcaamad ugu daray wudi abaalkaas soo hayay Cabdulhawaaka wuxuu halid wax badan qaba karaa silaaya wuxuu ugu yiri awla wixii bashaariic la keeni jiray isaga oo abaha buudi wuxuu ma fakr walaka awliga iskuul galay dadka maskaxdii Soomaaliya hore ee bisaaka lahayd Soomaaliyaashan sheegayo kan wuxuu yiri af Soomaaliya qorro والسورتاك اللي بيشيلها فبي بلح اللي بقري كره حلو بهاي بعضو عربية وحنا ودم عربي اللي بقري لا تكرر هاي سنة كقر هيا عربت عربت بين اللي أفكيل عربته أفكيل اللي لا تبقى قرر ساوي تبي كربس السورتاك لكم السنة لو در الدليل على سكولك رزق عروضه اسكولada laba xili karo caruurteedii saylo ku baa iskuuladii way dadka biiga soo bartay dhaqanka soo bartay wuxuu ra'yi uu keenay wallahi la keenay buu ragiga la oran jiray abe baan haysana wadaka habeeno dad soo jeeda afars kula balabay saddex sabax kula balabay marka Cabdikariin Kaari Cabdinuur labada nin oo soo daayay barnaamijkan geed fadhi channelka la yiraahdo ka soo hadla badana ayaa
waraystay nin la yidhaahdo danjire cawilna wuxuu ahaa nin ambassador ka ahaan jiray Soomaaliya bugaagna qoray dowladda Soomaaliya oo siyaad barre xukumayay iyo tii ka horeysayna labadaba la shaqeeyay sida aan ka fahmay hadalkiisana wuxuu ka mid ahaa raggii inqilaabkii 61kii isku dayay ayuu ka mid ahaa laakiin arrinta aan uga jeedaa waxa weeye siyaad barre Soomaalidu waa ka abaal dhaceen waana ayaan daro intuu Soomaali u qabtay iyo meeshuu Soomaali gaarsiis lahaa waxa weeye runtii wax aan la qiyaasi karin weeye wax jiilalka cusub oo maanta aan iyagu fursadda helin ama arag waaga joogin na wax aysan xataa ka fikirin weeye ama ku adag inay rumaystaan laakiin waa dhab oo waa la soo maray anaga joognay siyaad bare wuxuu ahaa runtii nin karti leh ilaahay karti buu siiyay dabiiciya kartidiisa waxaa ka mid ahaa inuu aragti lahaa inuu rabo wuxuu qabto inay u cadaayeen oo uu ka fikiri karay fikrada uu keeni karay inuu dareensanaa waxa ummaddan u baahan tahay in loo qabto oo uu arkayay iyo inuu lahaa go'aan iyo geesinimo uu wax ku qabto waxyaabahaasina waa waxyaabaha loo baahan yahay hogaamiyuhu inuu yeesho waxa u dheeraa intaas siyaad bare inuu daacad ahaa oo dadka Soomaaliyeed si siman uu ugu shaqeynayay waxa la ii sheegay gabdhihiisu inay ku umuli jireen isbitaalkii Banaadir ee caruurta iyo hooyooyinka inay ku umuli jireen oo ay active jireen dumarka Soomaaliyeed oo caadiga ma aha in qolol gooniye iyo meelo gooniye la geyn jiray caruurtiisuna iskuullada ay nala dhigan jireen halkaas ay nala fariisan jireen lama fadili jirin lama waxaan jirin markay iskuulka dhameeyaana sida dhalinyarada kale oo Soomaaliyeed bay ama jaamacadaha ama shaqooyinka ama wadanka horumarintiisa iyo dhismihiisa ka qayb qaadan jireen mayna arag siyaad bare hanti ay tabcadeen iyo daara ay dhisteen inuu dhistay iska badaayay laba guri oo uu lahaa ayuu ugu deeqay ummadda Soomaaliyeed meeshii uu ka dhisnaa guriga haweenka waxa la sheegay inuu isagu bixiyay mid kalena waa bariba ku yaalay baa la yiri runtii wuxuu ahaa nin u humeeyay naftiisa iyo waqtigiisa iyo kartidiisa ummadda Soomaaliyeed waa ka abaal dhacday ummadda Soomaaliyeed cawil inta shay oo uu tiriyay يعني waxadan malayn karin weeye oo raggii siyaad bare ku kacsanaa ay qireen siilaanyo uu qiray siilaanyo ka soo xiganaya wax walba mashruuc walba siyaad bare keenay biir nin xogogaal ahaana waagaas wuxuu ii sheegay in siyaad bare mashruuc walba uu kor joogteen jiray oo hubin jiray in lacagtu halka ku baxdo waqtiga loogu talagalayna uu ku dhamaado waxyaabaha siyaad bare qabtay wax badan baa laga hadlay anigu ma rabo inaan hadda dib ugu noqdo meeshuu wadanka ka soo qaaday iyo meeshuu gaarsiiyay waa la ogyahay laakiin dad badan baa ku eedeeya meel xun buu dhigay wadanka meel xun ma dhigin jabhadii qabiilka ku dhisnaa oo kala cararay oo ku soo duulay ayaa dhigay kama hadashaan kuwaas haddaanay ina fadqalalayn lahayn ina dhibaatayn lahayn ummad isku duuban ayaynu ahaan lahayn oo meel tagta oo xukunka la kala dhaxlo ama military waxa kala dhaxlo ama hadhow si kala aynu maaragtay u xubsiiban waxay rabtaa noqoto laakiin ummadisan oo horumarta ayaynu ahaan lahayn jaamacadaheeni bangiyadeeni beeraheeni dhaqaalaheeni wax walba dadnimadeeni wax walba waynu burburin jabhadihii inagu soo duulay ilaahay habaar ku rido kuwaas waxaan u maleynayaa inay shalaysan yihiin maanta kulligood wixii ka nool qaar badan oo hadda dhintay Cabdullaahi Yuusuf Cali Mahdi labadaba ana arkay iyagoo shalaysan midba shalaayay oo yiri hadaan ogahay inay istaan noqonayso saama sameeyeen hasaate waxa rabaa inaan ku soo koobo inay waajib tahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo waagi siyaad bare la sameeyay taariikhda inay siday tahay looga sheekeeyo oo qarinta iyo beenka sheegidda iyo maroojinta ama maaragtay in la qaloociyo ama caynka in laga dhaafo waana waajib qof kasta oo wax ka og siday ahayd inuu u sheego waxa dadka Soomaaliyeed يعني mararka qaarkood dadka qaarkiis garaadkooda suu u gaaban yahay anigu waa yaaba waxay iska rabaan in la yiraahdo siyaad bare inaba xukunkiisi wax ceeba ma lahayn wax dhiba ma lahayn adduunku saa maaha
adduunka meel aan ceeb ahayn iyo qof bini aadan oo aan meel ma garanaysaa nusqaan ku lahayn ma jiro laakiin waxa weeye war xaggee qofku u badnaa xaggee u socday see wax u qabanayay see dadka isugu waday ayaa la doonayaa baleeg hadda dhalinyarada dadkii waagaa ahaa oo dawladdu wax bartay qof walba wuxuu ku leeyahay shaqaa lay siiyey lacag baa laygu siin jiray iskuulka halkaasaa lay dalacsiiyey kuma oranayo adeerkayba ay keenay kaaba qabiilba ay keenay kana ay keenay kuma oranayo maalin dhaweed waxaan fiirsanayaa Dr. Bayle ninkii waagii farmaajo wasaaradda maaliyadda hayay oo leh mid baarlamaan ku jira ama oday kaaba qabiila ku imaanaya wuxuu ku leeyahay qof meel ka shaqeeya ka eriyo mid kale oo aan wato reerkayga gee markaasaan oranayaa biyo maxaan u geenayaa ninkaas waa nin Soomaaliyeed wuu shaqaystaa ama gabadhaas waa gabar Soomaaliyeed way shaqaysataa adeer maxaan cadaalad darrada u galaya waxa mayna lahayn waagii siyaad bare waxaasi ma jirin kartidaada ayaa meel ku geenaysay waxa ayaan daraa marka dadkii siyaad bare uu wax ka dhigay oo soo saaray oo dawladdiisii iyo kacaankiisii uu meel gaarsiiyey ayaa la rabay dhaxalka inay ilaaliyaan runta ka sheegaan laakiin iyagii baaba duugaya ugu horeeyo oo ka hor imaanaya way qabyaalad bay aadayaan nin la oran jiray Cawil Captain Cawil baan u malaynayaa inuu magaciisu ahaa oo dhowr 80kii diyaaradda Somali Airline buu aftuubay Ethiopia la aaday jidka isagoo jiifa dadkii laga qaaday buu hayo la geeyay meeshii wiilashii la foolo lagu hayn jiray dugsigii sare u dhigay magaciisii askartu galay kabtan buu ahaa waagaas abaaraha kuwii laga soo badbaadiyay magaalooyinka kuwii iyagoo koolada dhuuqaya laga ururiyay kuwii ma garanaysaa aan waxba lahayn oo miyiga iyo magaciisii oo iskuulada meelahoodii loogu geeyay waxaasoo dhan oo kulligood meel sare wada gaaray hana qaaday jaamacada galay dhakhaatiir noqday maxaan ku yiraahdaa askar noqday ganacsato noqday wax walba noqday qof kaliya oo nimcada leh inaynu ilaashanay ahayd ama siyaad bare waxbuu qabtay ama la'aantii waxa ma heleen waa adag tahay inaad aragto ma badna waa fara ku tiris laakiin waxa la yiri xaqu feeruhu ka dilaa hadda runta ayaa runtii la tagay 40 sano ku dhawaad oo iscayrsi iyo qabyaalad iyo magaciisi iyo musuqmaasuq iyo Xasan Sheekh iyo kan iyo baaba ayaa hadda dadkii waxaad moodaa inay garaadkii ku soo noqday wuxuu yiri nin maalin dhexdaas aan idiin soo qaaday barnaamijkiisa wuxuu siyaad baro ugu yeeray maalkiisa lagu faan magaciisa laga faan wuxuu yiri qof walba wuxuu ku leeyahay waagi siyaad baraan karha guriga waagi siyaad baraan la isiiyay ee kan markhaati buu gashanaya yani wixii siyaad bara waagiisi waa biyo kama dhibcaan laakiin haddana waa laga gabanayaa in la sheego wax qabadkii dawladda iyo wax ay samaysay iyo siyaad bara caynku ahaa waa laga gabanayaa waxaanse ku faraxsanahay maanta in waxyaabahaasu ay banaanka imaanayaan oo noqdeen waxyaabo aan la qarin karin waa ka badan yihiin yani taariikh kalaba ma haynaba kadib iyo ka hor taariikh kaloo macnalo aynu sheegno maba haynaba marka maxaad ummadaada waxa gelinaya faraxa iyo qabka iyo dadnimada maxaad u qarinaysaa sheeg fidi faafi warjeynaya inay taas inaga dhaadhacdo Cabdi Maxamuud Qalla iyo barnaamijkii idinka imaan jiray macadka nabadda iyo bulshada sidaa ay nabad geliyo walaalayaal